qofku aad iyo aad u dhibsanayo taas ayaa ugu badan oo qofkii ka bixi kari maayo wixii joojin kari maayo marka waxay ku khasbaysaa inuu had iyo goor maanta oo dhan uu socdo oo isiraaho bal ka baxso hadalkan xun iyo caydan iyo dhaliishan lagu siin yani qofkan uu kugu hayo taas markaa waa calaamada ugu horeysa ee dadka badankiisu ay ka dareemaan qofka uu ku dhaco xanuunkan waalida ah ama schizophrenia codka uu maqlayo waxa uu weheliya qodob kale oo dadku iyana ay markiiba ay dareemaan waxa iyana ku dhici karta in uu qofku uu arkayo wax dadka kale aanay arkaynin marka codkii madaxa ugu jiray ee la hadlayay waxa ugu soo darsamaya inuu arko wax ama qolkii uu ku jiray dad u soo gelaya ama waxyaabo kale oo dadka la jooga aanay arkaynin marka waxa la dareemaya qofkii markuu yiraahdo waxaasa inoo soo galay ama aan arkaya dadkii kale way arkayaan inaanay wixii aanay jirin calaamadaha waxa la isku yiraahdo afka qalaad lagu yiraahdo hallucination cod aan dadka kale maqlaynin oo maqlayo iyo waxyaabo dadka kale aanay arkaynin oo qofkan xanuunkan dhimirka ah waalida ah ama schizophrenia ku dhacda uu arkayo dadka kale aanay arkaynin waxa marar badan inta uu weheliya inuu qofku dadka kale aan jirin uu isagu mataqaanayo uu urinayo inta badan waa wax qarmuun oo aad iyo aad qofka u dhibaya ayuu oranayaa waan urinaya dadka la jooga ee ka agdhow waxaan anagu waxa ma urinayna adigu aad urinayso taasuna waa leedahay waxa kale oo marar badan qofku uu yeeshaa inuu dareenka u isbedelayo oo uu dhadhamay مثلا wax aan qadaad u dareemayo isagoo waxba aan cunin afkiisa yani dareen dhadhan ah oo qadaad ah oo joogto ah uu qofku ka cabanayo waxa jirta oo marar fara badan uu qofku ka cawdaa dareenka taabashada ama maqaarka ama jidhka hoostiisa ayuu dareemaa in ay ama wax mas uu dhex marayo ama quraanjo ay dhex marayso ama waxyaabo ayuu uga cawdaa yiraahaa jidhkayga waxa hoos maraya waxyaabo caynkaas oo kala ah ama mas noqoto ama quraanjo ha noqoto ama wax kale ha noqoto marka dareemayaasha iminka inta aan soo sheegay oo dhan waa shanta dareeme ee bini aadamku uu leeyahay aragtida maqalka urta dhadhanka iyo taabashada intaas oo dhan ayaa qofka maskaxdiisii waxa gelaya khalkhal baa gelaya marka waxaan jirin buu arkaya waxaan jirin buu maqlaya dhadhan aan jirin buu ayuu qofka dhadhansanaya wuxuu dareemayaa in mararka qaarkood ama ciid ama quraanjo ay wax ku dhex soconayaan calaamadahaas markaas ugu culus oo laga dareemaa in qofka